kusoo dhawaada idaacadda Soomaali Irish Media oo aad maalmahanba nooga barateen inta Ramadaanka uu socdo inaan idin soo gudbino barnaamij wacyigelin ah wacdi ama muxaadara ah maalmahanba waxaan martino ahaa sheekheena Sheekh Cabdiraxmaan Al-Xadaad maanta barnaamijku waxa weeyaan uu ka duwan yahay kuwii hore oo maalmihii la soo dhaafay su'aalo diini ah muxaadarooyinka gaaban ayuu barnaamijku ku socday laakiin maanta waxaan rabnaa inuu sheekha uu na siiyo in yar oo qisa ah qisaska uu hayo aan ka dhuuxno oo aan ka barano Sheekh Cabdiraxmaan maanta maxaa noo haysaa بسم الله الرحمن الرحيم آدم صلوا يا إلهي خير كسيو ولك عبد الله موسى إلهي دين بركة ما أنتي ندتك ندهونا يبا إلهي سبحانه وتعالى نقدر ودتك بشان كفاية سنة ما أنتوا سوقتها ما أنت لحد وهاي بش واصي صعدا إلهي سبحانه وتعالى نقدر ودتك أو بش المستراي آمين ما دام المهم بدك هذا وعي قلنيسي أو المحاضرين iyo su'aalo iyo wax badan dadka ay ku weydiiyeen maanta dadka maxaa haysaa والله ما أنت هرتو بإذن الله إن شاء الله كل وحاول سوء أكتهي وحاول تاريخ وإسلام كأه وحاد كبوها قصص آدو فربدا دتكي هوري وأكتة هذه سدد بقول سنة كهوري دتك مركا حشكو هذه جيران حد أكتة وقت كان لجو هذا حرم كواحرين هي دتكم عمري سنة marka waxa way dibka dadkan wuxuu ku dhacay laakiin waxa way dadkii hore marka imaan jireen oo xajka iyo umrada oo imaan jireen waxa way si rasuulku sallallahu alayhi wasallam horta waxa way kholo kasto ba dhinac ka imaado oo dhinac ba si deegaan dadka shaamka hada aragto dhinac shaamka si deegaan groupka oo Yemen ka imaado dhinac Yemen si deegi jireen groupka kale oo meesha ka imaan Najd dhinaca Najd deegi jiray waxa way saasa loo kala deegi jiray hadda waxa way marka saasa loo kala deegi jiray hotelaash iyo waxaas ma jirin laakiin waxa way guriyaal aa jiray oo waa la og yahay guriga dadka oo groupka shaamka imaadeen dhinaca shaamka aa deegi jireen dadka Yemen ka imaadeen dhinaca Yemen aa deegi jireen saasa loo deegi jiray hadda waxa isku bedelay meeshii Mina waxa aragtay dadka Yurub oo dhinaca Yurub u degaayeen dadkii oo magis maxaa lahaa Aasiya meeshii Aasiya degaayeen dadkii Afrika degaayeen dhinaca Mina loo bedelay marka waxa way qolo oo Shaam ka imaadeen dadka xujayga ka imaadeen marka kulli waxa waa ogtahay adiga dadkii marka imaan jireen markaas geel iyo waxaas lagu imaan jiray baabuur ma jirin oo magis diyaarad lama jirin marka dadku waxa si qaadi jireen dad u khidmeynaya jidka ilaa oo xajka marka ayaga tagaan ilaa xajka ka soo baxaan qof dadka markaas waxa jiray adoon la isticmaal jiray oo dadka oo khidmeyn jiray marka dadkii oo Shaam marka ayaga ka imaadeen ninba u khidmeyn jirin oo ayaga oo wataan xaq soo wataan geelaasiyeen geelkaas asigu isticmaali jiray dadku u khidmeyn jiray cuntada u karin jiray ilaa ayaga oo xajka ka imaadeen xajka marka imaadeen u khidmeyn jiray marka imaadeen hadii ka soo baxeen xajka ilaa ayaga oo Shaam ka soo u laabteen asa u khidmeyn jiray marka ayaga imaadeen oo maka imaadeen meeshii oo iyaga lagu talagalay oo sii degeen oo guriga sii galeen alaabta u dajiyay alaabta dadku uu ku soo dajiyay markaas waxa way jikada u garay asaa dadka cuntada u karinooy marka asiga jikada garo markasto waxa ku taagsan jiray wax markaas cod ka bixi jiray marka oo yahay waxa maxaa way marka saas u fiiriyay carada saas ka faayay wuxuu arkay alwaax oo weyn ah saas u qarsan alwaax uu korkiciyay markaas wuxuu arkay magis maxaa lahaa weel oo waxa ku jiro oo magis maxaa good ku duduwan weelku soo bixiyay tartiib soo bixiyay oo furay wuxuu arkay dahab oo fara badan oo ku jiro markaas ninku saas u yahay waa farxay markaas meeshiisa ku soo celiyay wuxuu dhahay marka aniga si baxeen magis maxaa la hore si qaadana marka dadka si fiican u khidmeyn jiray marka waxa way qof oo magis maxaa la markuu asiga dahabkaas u arkay wuxuu dhahay insha Allah sanadka soo socdo anaaba dad soo qaadi jiro dad oo ii khidmeynay markaas magis maxaa la xajka marka ayaga dhameeyeen waxay dhameeyeen markaas maalinta ayaga baxay rawaan ninkan goodkaas oo qaaday good kale ku soo diiduubay markaas geelkiisu oo asiga oo sii roray oo alaabtiisu ku xirtay marka
marka si uu socdo jidku ku jiro dadka uu khidmayn jiray asoo dadka uu khidmaynayo maxaa lahaa oo adiga laba maalin oo dhiman oo meesha oo ay guriyaashood inay gaaraan rabaan waa degteen waxaa rabaan cuntaa u kariyay dadku u kariyay marka ninkan aad dadku u khidmaynayo uu faraxsan yahay inuu dadku waa la yaaban yahay marka asoo saas u taagan maxaa lahaa geelkiisa fokaday marka waa fokaday aad u orday marka waa ka daba orday dadkana kale waa ka daba ordeen adiga geelku waa la waayay meeshuu asiga gali kaale adiga sheeg marka ninkan aad u walwalsan yahay dadku wuxuu dhahay warniyo ilaahay subxaana watacaala maya wallaahi ninka oo geelka isiiyey oo maxaa lahaa oo aniga idin khidmayn jiray oo geelku isiiyey oo saas waxaa laga yaabaa hadhowta inaan naga xanaaqo maya anaga waxaas dhan anagaa geelkale anagaa siinayno adigana waxaa waaye maxaa lahaa hadiyadan ku siinaynaa iska dhaaf saas u walwalsan yahay kulle asiga aad hatta u ooy ninka dadka waa la yaabin markaasoo aliga si la sabriyay iyo waxaas kale markuu la waayo muddo geelka waxaa dahabka waa fuula fahamtay wuu fokaday markaas dadkaas maxaa la adiga waa baxeen marka geelku alla waayo waa baxeen markaasay baxeen maxaa la xagga gaareen maxaa ninkii oo geelka dadka ninkan siiyey geel kale loo celiyey asigana hadiyad la siiyey ilaahay subxaana watacaala khayr siiyo marka adiga sanadkaas soo maray sanadkii ku xigo dadka xujaaj dadka group kale raba inay xaj aadaan marka waa weydiyay dadkii hore oo aaday waxaan dhahay nin oo na khidmeeya aan raadinaa war nin hebel nin ka fiican ma bajiro ba si fiican uu khidmeeya waa nin oo maasha Allah tabaaraka Allah oo aad u fiican waay markaas ninkaas raadinay isla ninkii waa la raadiyay waa la helay marka wuxuu dhahay man raacaysa nin xajka inaan khidmeeyo rabna ilaahay kale ku siiyo asoo maxaa la saas waxaan wuxuu dhahay waa idin raaca maxaan sameeynaa waa raacay marka dadka asoo raacay marka isla socdaan soo khidmeynay ma sha Allah wax ma ka xanaaqsano waxa arinta hore oo asigu uu saas ku dhacday maxaa wili xanaagu ku jira markuu asay jaaniskan hadin helo wuxuu dhahay xashka u socda oo faa'iido weyn waay markuu maxaa la dadku raacay marka meeshii oo maalintu asiga geelka oo ka fokoday marka gaareen uu xasuustaa meesha markaas waa deegaan ayagoo ku nastaan oo deegaan ayagoo ku nasanooyay maxaa la cuntadu dadku u kariyay marka waxa la bariyo sawir wareega asoo sawir wareego meesha saas u socdo marka wuxuu arkay meel oo eel khodan uu arkay waliyo sanadka si dhaaf eelka ma arkay maxaa ku jira bal eelkan aan fiiri waxa laga yaabaa ama geelka meeshan inuu ku dhaco leh geelkiisa hore markaas uu asiga eelku saas u arkay uu hoos wili u soo degay wuxuu arkay geelki oo laftiisa soo dhintay uu arkay marka wuxuu dhahay Allah maxaa Allah gudaha sii galay gudaha markuu soo galay goodkii arkay oo sidii u duwan oo arkay marka geelku uu soo bixiyo wuu furay wuxuu arkay dahabkii sidiisa ku jiro dahabkii ka lumay dahabkii oo ka dhumay sanadka hore uu arkay sidiis wuu farxay markuu u qaaday geelkiisa oo asiga oo hadda uu laaban karo kulli ma waxa dadka hadda xajku u socdaa moogtahay uu laaban karo wuxuu dhahay marka hore si qaadana xashkan si aadina marka si laabana hadin ilaahay subhanahu wa ta'ala ma sha Allah bahashan waa maya hore qaatay uu qaatay marka uu duway marka meeshii aad tageen waa meeshii oo wili guriga ayaga ku soo degtay gurigaas la ku degaa markaas waxa uu jayga shaam markaas wuxuu dhahay alaabtiisa soo dejiyay marka meeshii asiga oo dahabkii markii hore ka halay meeshaas uu geliyay wuxuu meel ka aaminsan ma jiro meeshaas uu geliyay marka aniga si baxin hore u sii qaadan u dhahay marka meeshaas markuu geliyay alxamdulillah ayuu degay loo bari ayuu saas sii joogan ninka guriga iska leh oo imaaday marka guriga gargaraacay wuxuu dhahay maxaa la guriga ana iska leh meeshan oo idinka oo degaysi markaas ana iska leh amaana igu jiro amaana raba inaan ka soo baxsado marka uu galay waa la fasaxay uu galay marka jikada uu galay meesha oo asiga alwaaxida meesha uu kiciyay bahash waa ku jira uu soo qaatay bahashiisa ninka uu arko markaas uu arkay marka uu liyaabay magtahay ninka warmiyo maxaa ma guriga ana iska leh kan amaana mar hore 10 sano inta asgariye marka alaabta aan raba inaan qaato had warninku waa la yahay wuxuu dhahay sidaan fudud alaabtaada ku qaadanaysa bal ma xasuusan ma ogtahay horta in alaabtan qisoo ku dhacay xaqu aaday maxaa meel oo shaam u dhow u aaday hadin meeshiisa lagu soo celiyay
وحودي الدنيا أنا حتى أساس كسوره وأوجه ماشي أساس كسوره نقنا لأن مال سنة كتوزكري سوابح يعني ألعبته سبحان الله مركا waxaad ku tusinaa marka subxaan allah yani waxaa waaye qofku wuxuu ka faa'iidaysanaya qisadan okay waxaa waaye qofku hadduu asiga waxiisa oo xalaal yahay oona zakadiisa waxay ilaahay waajib ku korka hadduu asiga ka bixiyo markastoo subxaan allah alaabtiisa ma ku dhumaayo adduunyada dhan hadduu ku soo wareego ha laakiin waxaa waaye waxaan ka faa'iidaysanayna qisadan ninkan si dadku u shaqaynaya u khidmaynaya maxaa saas oo dhiirigeliya asiga inaa saas u shaqeeyo لأنه وحاول ألعب تاسو أركي ذهب كسو معها مرك عليك حد خوفك بني آدم هذا اللي عليك ما أنت وصومن تهي صدقنا بحنيسة صلاة تراويحنا ودكنيسة مجلس محل أعمالك خير وسمينيسة ما حد وسمينيسة وحاكم قال إن عليك أول مرن وين إلهي كسوقس جنة سو معها مرك ها خوفكم مركزته ولو باهية هي إنه عبادة والنشاط إنه إسكالي سيق إلهي سبحانه وتعالى أجر وين وأكتسب كسي حلو ما شاء الله بإذن الله إن شاء الله قصة عجيبة كنت قصة عجيبة ما شاء الله marka qisada waxa ka baranay inuu qofka bini'aadamka oo xoolihiisa uu ka baxsho qofka inuu cibaadada ku dadaalo sax wixii xalaalana malaman subhanallah daawadayaal waxaad daawanaysaa waxa weeye waa barnaamijkeennii aan ugu talagalnay amaanka oo marsada lagu ahaa sheekhana Sheekh Abdulrahman Al-Haddad qisada maantay lagu warbixiyay kulli wax badan ka baranay إن شاء الله تعالى وحن سوسنا وضعنا وحويان مانتي ما نتحته أو بريئة عاد بقى سنتين دمانتين بقى وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيك إلهي سبحانه وتعالى خير إذن بسيو جزاكم الله خير جميعا إلهي إذن بركة إذن كان ما شاء الله إلهي أجل بسيو وحاول يسمح الله برنامج كان محاول ولكن عبد الله موسى إلهي سبحانه وتعالى خير كسيو إلهي سبحانه وتعالى قد يودد كان بالشيء لم يسترى إلهي سبحانه وتعالى قد يقول وكفر حاين وأجرك إلهي سبحانه وتعالى.